daawadayaal wararka kale ilaa hadda ayna soo gaadhayna waxaa ka mid ah maayarkii hore ee degmada Arabsiyo Maxamed Ibraahim Nadiif oo kulan kala qayb galay gudida gacanta ku haysa dhismaha wadada weyn ee isku xidha Leybada iyo Arabsiyo ayaa markuu shirkaasi idlaaday TV-ga Royal uga warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen gudida gacanta ku haysa dhismaha wadadaasi say wareystay hawshan shirkaan maanta ka soo baxnay ka soo jaclay minad goobjoog ah waxa weeye waa shir guud oo mooda aad u qurux badan oo aad u jeclaysanay shirkaas oo ah gudidii dhaqaalaha ee Leybaday iyo degmada Arabsiyo maamul iyo gobolkii oo dhan iskaashaday marka waxa weeye wadadaas oo magac iyo maamuuska marka hore lagu lahaa ayaan doonaynaa inaan isku xidhno wadadii Leybaday iyo Arabsiyo marka waxa weeye jaaliyadahan iyo magaraysa muuqaal ahaan dad degmada Arabsiyo waa inay ka qayb gashaa hadii aan la yiraahdo wadadaasi hawsheeda magaalo waxay magaalo ku noqotaa waa wado weyn barigaan u saamin wadadaas in halka ay soo marto waxay magaalada Arabsiyo bari weyneen magac bayna ku maadsan gudida xitaa Leybaday lafteeda markay nala qaadatay ila Arabsiyo Leybaday maartay degmahan la isku xidho waliba in hoos loo sii ilaa agab lagu xidho qurux badan leh marka waxa weeye meeshii wada ay marto wad la socotaano khayraad iyo waxa ka soo kordhaya iyo population iyo wanaag baa soo kordhaya marka runtii wadadana sidii balbaaxadeedii iyo sirfeekeedii loo taaban lahaa oo deeta ma garanaysaa qaynuunada inuu suura gasho laga bilaabi lahaa qaybta labaad Arabsiyo waa ajataha loo yaala hadii la raado kala guudahan waxa laga hadlay wadooyinka haday noqoto wadada laamiga Gabiley soo xidha iyo wadooyinka magaalada oo dhan magta sidii loo hagaajin lahaa lafteeda loo bilaarin lahaa laftooda ee ay dadkuna ma garanaysaa uga qayb qaadan lahayn wadooyinka loo bilayn lahaa taas lafteeda lagu jirtaa dawlad kulada Arabsiyo wadleed marka waxa weeyaan waa inaad sidii hore fadhiga hore laga kaca waxa weeye waxa la doonayaa in maxay istiraatiijiyad la sameeyo in magaaladii maxay sirfeen loo sameeyo magac iyo martaba loo sameeyo marka waxa weeye wadada isku xidhka ay Arabsiyo iyo Leybaday aniga runtii aad bay u weyn tahay waxay soo kordhinaysaa wanaag sharafay soo kordhinaysaa ee Arabsiyo wuxuu taraysaa wada riigiyada beeraha lagu wada dhigay arkiiso marka waxa weeye runtii imika waxaan ku talagalaynaa sidii loo xidhka lagu aslaha sidii hoob lagu qayb lahaa hadii la dhaawayno waa ajataa dambe caaqilkayga iyo odayaasheedu dhanba waa loo ballamay arrimahaas hadii la dhaawado sirfeenkii wadada imika dadka ku soo durkay marka wadada la sameeyo dadku way soo durkayaan marka waa in dadku lafteedii iska jaraan wadooyinkii lagu taa lafteeduna ajataa ka maqnaa hadii la dhaawado Muuse Xuseen Xasan TV-ga caalamiga Royal degmada Arabsiyo